لك الحمد إني أحب كتابك أرتل أتلو وأرجو ثوابك تدبرت ما أنت يسرته لي فيشفع لي أو يقيني عذابك. لك الحمد أنزلته خير منزل على عبدك المصطفى خير مرسل. سمعنا أطعنا سنتلو ونعمل إذا ضاق باب قصدنا رحابا. لك الحمد يا الله لك الحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. daawadayaal waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport oo aan ku soo dhaweyn doono wax yar kadib sheekheena weyn Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi al-Muqri wal-Qaari sheekha caalamiga saad u jeedaanba waxaa hadda halkan jooga oo ku sugan طلاب العلم iyo maaragtay dhammaan wadaadadii kala duwanaa ee magaalada Nairobi oo uu horkacayo fadilatu Sheekh Al-Walid Sheekh Maxamed Cabduhu Umal waxaa garabkayga taagan mudiirka jamciyadda oo maaragtay soo agaasimay ama maaragtay qaban hayo tartanka dhici doona oo uu sheekha hormuud u yahay sheekhana Sheekh Cabdirashiid مدير بل فافاهين نغسي مسابقات إقابك وحو دعاهيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله ما أنتم حنكسونا إلى بارك جومو كينياتا وحنسوقنا شيخنا المقري الشيخ عبدالرشيد علي صوفي وإن شاء الله تعالى مردو سودقي إن شاء الله تعالى مشايخ ذا سحوي ماذين شيخ عبدالرشيد علي صوفي شيخ محمد عبد الكريم من السودان sidoo kale Sheekh Siraaj Ali Cilmi oo min Ethiopia Sheekh Xasan Saalix oo Mareykanka socdo sidoo kaleeto Sheekh Abdulmajid Abdisalaam Almajidi oo isagana Yemen ka socdo culimadaas oo dhan meeshan waxay u imaanayaan inay taxkiimiyaan tartanka adduunka oo laga qabto wadankan Kenya oo lagu magacaabo musaabaqad Kenya ad-duwaliya lil-Qur'aan al-Kariim tartankaas ay u imaanayaan oo ka qayb gali doonto insha Allah ta'ala sanadkan 40 dawladood oo Afrika kamid ah إن شاء الله تعالى ترتنكاس آدي آد وين أي علماء آدي آد وين إن شاء الله تعالى قادي دونا ونكسر دوين دونا بإذن الله عز وجل وحنا رجينا يا شعبك يضد كنا الوطن كان كينيا إن يسفي عن علماء نلسو دوين. بارك الله فيك كالسنة وحوها إمامك جمعية القرآن الكريم وهوستك تام فرعك منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية وهجامين هيو شيخنا الوالد شيخ محمد عبده أمل haatan waxaan rabaa inaan wareysto ka soo qaybgalayaasha ama dadka talabatul cilmiga ee u jooga halkan inay tarxiib u sameeyaan laa'iqa sheekheena weyn Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi waxaan hadda la joogaa oo maaragtay wareysan doona culimada ama wadaadada ka soo qaybgalay tarxiibka sheekhana farxadaada sidee weeye ka soo qaybgalka aad ku soo dhaweynayso sheekheena weyn Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ma sha Allah waa arin aad u wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo soo dhaweynta sheekheena waa maxay radaa lama qiyaasi karo farxadeeda ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah waxa garabkayga mutasaabiq ka qayb galay musaabaqadii hore Sheekh Abdul Wahhab wali waan ku xasuusanaa waxaan soo gashay kaalintii labaad kaalintii saddexaad wuxuuna matalahay Soomaaliya oo wuxuu ka socday magaalada Muqdisho maantana wuxuu ka mid yahay dadka soo dhaweynayo sheekhana Sheekh Cabdirashiid bal ka waran shucuurka iyo farxadaada sidee dareemaysaa barakallahu fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حقيقة aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo oo aan nasiib u yeesho dadka soo dhaweynayo fadiilada Sheekh al-Muqri Sheekh Cabdirashiid ibn Sheekh Ali Suufi dareenkaygana ma cabiri karo xaqiiqatan farxadda aan dareemayo inaan maanta ka mid noqdo dadka soo dhaweynayo aadna ugu faraxsanahay ما شاء الله ما شاء الله waxaan rajeynayaa inaad si fiican u qaabisho sheekh barakallahu fiik waxa dhinaca kale iga xiga Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani oo maaragtay asagana kamid ah talabatul cilmiga magaalada Nairobi sheekh ku soo dhaw ka waran farxadaada iyo tarxiibkan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
soo dhaweynta sheekha aad baan ugu faraxsannahay muqriga weyn sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sidaad ogtihiinna maaragtay magaaladan Nairobi maaragtay guud ahaan Kenya ama khaas ahaan magaalada Nairobi sheekha in badan buu ku soo noqnoqdo aad baa looga jecel yahay asagana waa ogyahay tarxiibkiisa aad baan ugu faraxsannahay xalay annaga waan soo jeeday waxaan u soo jeednay sidii aan u soo dhaweyn leen sheekheena weyn ee muqriga ah sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi waxaan leenahay ku soo dhawow maaragtay dadkaada iyo maaragtay dalkaada labaad ku soo dhawow barakallahu fiik wa jazaakallahu khayr bismillaah alxamdulilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alla alay wasalam saaka oo subax khamiis ah waxaan joognaa airportka Kenyatta International Airport waxaan u nimid inaan soo dhaweyno sheekheena muqriga cabdirashiid cali suufi oo hordhac u ah culimadii u timid musaabaqada qur-aanka kariimka musaabaqada Kenya dawliya oo insha allahu tacaala maalmaha soo socota ka dhici doonta magaalada Nairobi sheekhu lajnada iyo guddiga garsoorka musaabaqada ayuu oday u yahay saaka insha allahu tacaala airportka ayaa culimadan iyo dhallinyaradan la isugu yimid mashaayikhda si sheekh loo soo dhaweeyo waxaan leenahay sheekh cabdirashiid marxaba bik allah ybarik adiga iyo wafdigaaga iyo akhyaarta kula socota sheekh nuur kabiir iyo cabdulxamiid sheekh cali sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sheekha dhalay iyo sheekh cabdisalaam sheekh cali suufi مرافقين الشيخ على السعودي وي لما انت نوصل دواده ان شاء الله تعالى الله يوفقك شيخنا مرحبا بك الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم إلهي بقى سبحانه وتعالى نقول عزيي ونقول شرفي أما أنت المسلمين هذا النهي خاصة أنت أن قرآنك إلهي سبحانه وتعالى ونسبة الشاقنا إن شاء الله نقدر أهل القرآن الحمد لله إن أنه مال كستي يوضن كستي أنه ماركتي فعاليات كأما أنشطة دعوية خاصة ما يتعلق بالقرآن إن إلهي سبحانه وتعالى ونوافجيه مركا الحمد لله شيخنا الشيخ محمد أدباني هذه ورفقدي الشيخ علي جماعة لمانتين أدباني دينكم مهدينيا سو دوينتن بلارن أدماركتين سو دويشين waxaan dee ka soo qayb galnay sida sheekhu sheegay musaabaqata alqur'aan oo yani aan rajayn doona insha allah inay musaabaqa caalamiya noqon doonto hadda 40 dowladood bay maraysaa markii hore 6 meelahaas ku bilaabatay iyo in yar 10 meelaha ahay marka waa musaabaqa maaragtay mutafawiqa باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى فعالياتkeeduna uu dhawaan bilaaban doono وانا كون مهدينيا سيدا لا igu sharfay maaragtay la iga dhigay aniga يعني madaxa jamaacada ama lajnada التحكيم oo niman mashaayikho iga awleysan arinta ay ku jiraan runtii markaan ka hadlo جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم dhammaan waan idin wada salaamaya kulligiin ahla Kenya وخاصة نيروبي مؤسسة الإحسان والجماعة كلهم أدبان إذن سلام إذن كنا مهدينينا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم بارك هذا البلد وأهله يا رب العالمين بارك اللهم هذا البلد وأهله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم انشر رحمتك على العباد في مشارق الأرض ومغاربها اللهم وفق إخواننا في مشارق الأرض وأهلنا خاصة في الصومال اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين أنزل عليهم الغيث والرحمات والبركات والتوفيق والتأييد يا رب العالمين والألفة فيما بينهم إن ذلك عليك يسير وبالإجابة جدير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وأرجو ثوابا تدبرت ما أنت يسرته لي فيشفع لي أو يقيني عذابا
لك الحمد أنزلته خير منزل على عبدك المصطفى خير مرسل. سمعنا أطعنا سنتلو ونعمل إذا ضاق باب قصدنا رحابا. لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد إني أحب كتابك. شكرتك لما استقامت لساني ورفرف روحي بطهر المعاني. هداني سقاني كفاني شفاني سألتك فيه لقيت جوابا. لك الحمد إني أحب كتابك أرتل أتلو وأرجو ثوابك. تدبرت ما أنت يسرته لي فيشفع لي أو يقيني عذابك. كتاب مبين بأرقى اللغات جميل يسير عظيم الصفات. دليلي رفيقي ونور حياتي به في دجى الليل يطرق بابك. لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك